ودان maalinta arooskeeda iyadoo meesha maraysa midkood mooto wata dharkii ka hadlayna intay ku qayliso wuxuu ku dhahaa adiga meel qaldan soo maray aniga miyaa ku dhaha dhiiqada soo dhexmar kadib waxay u sheegaysaa inay arooskeeda saacado yar ka dhiman yihiin oo maalinteeda uga ciyaaray inta uu yimaado wuxuu weydiinaa hadda maxaa ku sameeyay ku dhaqa mayay ku dhahaysaa waqtigaas ma haysto ay waxa ka rabaa inaad dhar cusub soo gado wax yar oo fikiraya kadib wuxuu bilaabaa inuu iyada dhanba qaato mootada markii uu saaray waxay weydiinaysaa meesha ay u socdaan wuxuu ku dhahaa meesha u socona maxaad ii weydiinay adiga le Soomaaliya inuu dhihin dhar cusub ka rabaa dharkaaga le ku soo siina markii ay soo baxaan xogaa yar oo ay soo socdeen waa kuwana imaado tukaanka dharka lagu gaday waxay arkaysaa inuu banaanka uga haray kadib waxay weydiinay adiga maxaa kugu dhaca gudaha ma soo gelisid miya wuxuu ku dhahaa orod intaad gudaha gashid soo qaado dharka ugu qaalisan oo aad rabtid anigana banaanka kugu sugay kaliya waxaad samaysaa naagta dharka gadayso mashquuli kadib dharka intaad si tartiib ah u soo qaadatid aniga banaanka ku joogay ii soo dhiib intay yaabtay weydiinaysaa oo hadda maxaad rabtaa inaad dharka xadno haa ku dhahaa arintaas waxay kaaga wanaagsan tahay inaad dharkan wasaqda arooska ku aadid xoga ay diidaneen inay arintaas samayso ugu dambeyn way ogolaatay markii ay gudaha soo gasho midii dharka iibinaysaa soo dhawow maxaa ka caawinaa weydiinayso waxay dhahaysaa dhar cusub inaad isiisaa rabaa dharkayga iga wasaqoobi waxaana ka rabaa inaad ii boobsiiso arooskayga hal saac wax ka yara ka dhimane markii ay rabtay intay u soo qabatay waxay u tilmaamaysaa qolka dharka la isku tijaabiyo waxay bilaabaysaa marka inay mashquuliso iyadoo u dirayso kaba xitaa aysan u baahaneen markii ay kabaha doonto intay soo daba marayso waatana iyadoo degsanayso dharkii ay rabtay kadib midkii banaanka u taagnaa intii u dhibtay gudaha u laabay si aan looga shakin midaan tukaan kale markii arto qoftaan meelaha wareegayso kal iyo laabay uga shakine waxay taagan tahay kaliya meelahana warwareegaya si aan u raadiyo dhar kale oo ila eg kabihii markii u soo taagtana waxay ku dhahaysaa iska daayma u baahniye maadaama uu dharkaagu ila eg ka waayay haddana waxa go'aansaday inaan dhar dhanba iska daayo xoogaa kadib midaan waxay ogaanaysaa in dharkeedii laga xaday markii ay ka soo daba baxdana waa mar ay tageen iyagiina waa kuwaan ahe meesha arooska ka dhacayay yimaadeen wuxuu ku dhahaa hadda adiga dharkaaga waa heshay anigana dhibaatada waa ka baxa soo maahan mayay ku dhahaysaa ha bixin hawsheena weli waxaa ka dhimane waxay ka codsanaya inuu u soo xado haddana ubax aad qaali u ah wuxuu ku dhahaa adiga maxaa kaa qaldan rafaad badana waxa u maray si aad dharka ugu saxdo orod arooskaaga aad ugu dambeyn intay soo wada baxday waxay dhahaysaa aniga arooskaas ma u baahni waa ligu qasbayay marka waxaan kaa rabaa inaad meeshan iga wadid oo aad gees meel aad uga fog aan laga soo heli karin midkaana waa kanahay ugu dambeyn markii uu arkay midaan inay barihida saa'id tahay wuu ka ogolaana waqti badan oo ay soo socdeen ugu dambeyn meeshaan duurka ay imaanayaan isaga wuxuu ku dhahaa aniga markii magaalada madaxa igu saxanuto meeshaan imaada ubaxii ay markii ka codsanaysay inuu u soo xado isagoo originaal oo ku wareejina wuxuu u sheegay inay meeshaan iska joogto haddii ay go'aankeeda ka laabatana arooskeedii dib ugu laabato midkii aroosi lahaa meeshaan oo waqti dheer ku sugayay ugu dambeyn iyadoo gaari saaran oo imaanay wuxuu weydiinaa adiga maxaa kaa qaldan maanta dhan lagu sugayay adigana magaalka iska baashaale iyadoo meesha arooska la wada taagan yahay hal mar waxay iska soo jaray ana arooska ma ku jiri waa ka baxay hooyadeeda isku dayaysay inay la hadashay meesha dhan iska cararay laakiin nasiib xumadeeda markii ay banaanka u soo baxday waxay arkaysaa midii ay dharka ka soo xadisay boolis soo wadatay markii ay u sheegtay wax walba ay qoftan ku samaysay intuu soo wado xabsiga toos u keena waxay maqlaysaa daaqada qolkay ku jirto oo la gargaraacay markii ay fiirsana waxay arkeen midkii dharka la soo xadayay waxay weydiinaysaa ayaa ku sheegay inaa meesha joogo maxana ka soo doontay wuxuu ku dhahaa su'aalo miyaad weydiinay mise waxa ku dadaalaa sida meesha kaaga bixi lahayd way ogolaaneen midkan maadaama tuug soo ahay jira waqti dheer baa ku qaadanaysa inuu gudaha ka soo saaro intuu soo wado meeshii kamaha dib ugu soo celina waxay bilaabaysaa inay uga mahad celiso wax walba oo iyada darteed u sameeyay waxay ku dhahaysaa aniga waxaan rabaa sidaadoo kale inaan noqdo qof xorriyad haysto meelaha raba wareegi karo intuu u sheegay inay duurkan guri ka dhex dhisato ama ay ciddeeda u laabato meeshii isaga taga iyadoo ka fikiraysa wixii ay sameeyay lahayd oo muuqaalku dhamaanaya haddii halkaas soo gaarto legnosa